بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولا ليال waxaan doonayaa maanta in aan ku soo qaato halkan ama muuqaalkan inaan ku soo irqaato laba arrin. Arrinta koowaad oo ah nimankii Etoobiyaanka ah oo aad moodo siyaasadahooda inay soo daciifayaan maalmahan, oo aad moodayso in ay arrimo la xiriira beerlaxawsi in ay sheeganayaan. Gaar ahaan ra-iisul wasaarahooda Abiy Axmed maanta ayuu ka hadlay arrintaas iyada ah oo ka hadlay. Sidoo kale safiir ka mid ah safiirada xukuumaddiisana isna wuxuu ka hadlay, shalay ayuu ka hadlay, oo iyagu ku beerlaxusanaya ummadda Soomaaliyeed. Qodobka kalena waxa uu noqonayaa, hadduu alla idmo, kilibkii hadda ka hor oo aan sii daayay oo aan ugu jawaabayay siyaasiyiinta Etoobiyaanka ah, gaar ahaan ra-iisul wasaarahooda, iyagu heshiiskii is-afgaradka ay la gaareen Somaliland ay ku sheegeen inuu ahaa mid taariikhi ah, isla mar ahaantaana ay ka go'an tahay inay bad ay helaan, ay tahay arrin lagama maarmaan ah, sinaba aanay u joojinayn oo cid ay uga heebeysanaya aysan jirin. Marka horese waxaan ku hormarayaa oo aan ku ammaanayaa dadaalkii uu muujiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee xagga diblomaasiyadda, ee uu gaaray heer Etoobiya uu ka soo xirxiro diblomaasiyaddii dibadda oo dhan, oo meel cad uu uga soo haro, iyo ra-iisul wasaarihiisa Xamza iyo golihiisa xukuumadda, baarlamaanka labadiisa gole, shacabka Soomaaliyeed, ciidamada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba, midnimada ay ka muujiyeen iyo dareenka ay muujiyeen ayaan doonayaa marka hore inaan ugu mahadceliyo. Marka waxaan ku hormarayaaye qodobkii ahaa xagga heshiiska oo dadweyne Soomaaliyeed oo fara badan iyo saaxiibo ay iga soo codsadeen, maadaama uu ku baxay luqadda carabiga aan ku soo saaray dhowr maalmood ka hor in aan ka dhigo aan tarjumo, ay iga codsadeen. Kaasaan ku hormaraya, midka kale dib aan u dhiganayaa. waxaa si aad uga hadlay arrintaasi ninka la yidhahdo Maxamed Alcaruusi oo ka mid ah ama xubin ka mid ah baarlamaanka dalkaasi Etoobiya ayaa aad uga hadlay, iyo ra-iisul wasaaraha dalka Etoobiya Abiy Axmed. waxaa kaloo isna ka hadlay madaxa golaha amniga qaranka Etoobiya Ridwan ayaa arrintaasi ka hadlay. Marka waxay ku tilmaameen is-afgaradkii dhex maray dalkooda iyo Somaliland ee xagga badda in uu ahaa heshiis taariikheed, isla mar ahaantaana Etoobiya in ay ka go'an tahay inay meelmariso heshiiskaasi, oo wax weliba ay u marayaan, oo dowladda Etoobiya aanay ahaan doonin dowlad xabsi ku jirta, ayna tahay inay gaaraan dhinaca badda oo ay ka helaan deked iyo dhulba inay ka helaan, awood kastana iyo xeelad kastana ay ku doonayaan, ay ku raadinayaan. Marka ninka la yidhaahdo Ridwan oo isagu ah la taliyaha xagga ammaanka qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, waa Abiy Axmed xafiiskiisa, ayaa isagu ka sii badbadiyey arrinta. wuxuuna sheegay, isagoo aad moodayso inuu hadal hadadaad u jeedinayo, wuxuu sheegay in arrintii biyo-xireenka ee ka dhexaysay iyaga iyo Masar iyo Suudaan, waa webiga Niilka waddamada uu ku soo shubo, in marka ay bilaabayeen in duruufo iyo cadaadisyo fara badan ay kaga yimaadeen meelo fara badan oo ka mid ah caalamka iyo gudaha intaba, laakiinse aanay dhigna jalaq u siin oo ay gaareen ujeeddadooda, maantana uu shaqaynayo biyo-xireenka ayuu sheegay. taasina waxay ila muuqatay sida aan ku soo sheegay muuqaalkii carabiga ahaa, in uu dhambaal u jeedinayo Masar iyo Suudaan iyo Soomaaliya dhinaca kale marka la fiiriyo, oo uu leeyahay annagu waxna joojin karayaa ma uu jiro haddii aan nahay Etoobiya, oo wax weliba xoog ayaan ku raadinaynaa maadaama biyo-xireenkiiba aan samaynay. marka waxba nagu qaadan mayso inaan zeylac gaarno, macnaha saas u dan lahaa, ujeeddadiisu saas ay ahayd. marka arrinta iyada ah anigoo laba qaybood u kala qaadaya, bal aan soo hormariyo qaybta Masar. waxay ila tahay oo weliba aan u sheegayaa hoggaanka Oromada, gaar ahaan Ridwan
iyo caruusi iyo ra-iisul wasaarahooda waxaan u sheegayaa in biyo-xireenkaas Ethiopia aanay ku guulaysan karaynin haddii Masar oo aan naqaano miisaankeeda iyo culayska ay ku leedahay wadamada Carabta iyo Afrika iyo dunida intaba haddii iyadu aanay qadirin oo aanay ixtiraamin madax bannaanida ummadeed iyo heshiisyada iyo xeerarka caalamiga haddaanay ixtiraamin waxaa caddayn ahaan inoogu filan oo arrintaas xoojinaya madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump hadal ay kasoo qaatay muxuu ahaa bartanetka ee lagu magacaabo france24.com ayaa waxa uu ku sheegay inay habboon tahay inay wada hadlaan wadamada niilka uu kusoo shubo iyo Ethiopia haddii kale wuxuu yidhi Trump Masar way caroonaysaa waxayna burburinaysaa biyo xireenka hadhowna sheekadu waxay noqonaysaa yiri mid iska dhamaato oo sidaas ku dhamaata ayuu yiri taasi aan kaga haro dhinaca Masar xagga wadankeena aan u soo laabto marka anigoo ah diblomaasi Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hoggaanka Ethiopia gaar ahaan Abiy Ahmed waxaan ku leeyahay qofka aadamiga ah mariyoodo isagoo soo jeeda oo indhihiisa ay furan yihiin oo caado uma aha laakiinse waxaa ka horeysa riyada qofka marka hore inuu seexdo markaa uu riyoodo marka waxa ay ila tahay Ethiopia iyo hoggaankeedaba ee oromada ah inay riyo ku jiraan oo ay riyoonayaan ayaad moodaa oo weli aanay gaarin bisayl siyaasadeed aanay gaarin mana filayo inay gaari doonaan sababtoo ah hoggaanka hadda jira waxa uu muuqdaaba markii aan odoroso siyaasadda markaan odoroso waxa uu muuqdaaba mid maalmihiisu ay kooban yihiin ayuu u muuqdaa waxaa ku filan qallaasaha gudaha dalkaasi ka jira iyo Soomaali oo midowda maanta oo aanay u babacdhigi karin Ethiopia Soomaalidu waxay tiraahdaa ceesaantii madax shabeelleefta malageeda baa galay ceesaantii mas iyo good madax shabeelleefta malageeda baa galay marka waxaan ku leeyahay hoggaanka Ethiopia handadaada iyo waxyaabaha aad wadadaan aad u soo marinaysaan ummadda Soomaaliyeed warbaahinta aad u soo marinaysaan ka jooga sababtoo ah innagu way isnaqaanaa Soomaaliya Ethiopia way is yaqaanaan aad bay isu yaqaanaan marka haddii aad u bururaysaan dagaal waa furan yahay garoonka waxaan ku leeyahay hoggaanka oromada ee hadda Ethiopia ka taliya war xagee ku maqnaydeen marka aad Soomaaliya maanta aad liidaysaan oo aad ka dhigaysaan waxaan waxba ahayn oo awood lahayn xageed ku maqnaydeen maalmihii boqortooyadii imbaradooryadii Soomaaliyeed soo xigay ay xukumayeen laga bilaabo dekedda Zeylac ilaa iyo godka laga qodo dahabka ee ku caanbaxay ee ku yaala magaalada Soomaaliya ee dalkaas Mozambique ee ay maamulayeen maamulkii ka dhisnaa Muqdisho oo markaasi ay hayeen hoggaanka ay hayeen boqortooyada Arjuuraan muddo ku dhow 700 sanadood waa 7 qarni markii halyeygii Soomaaliyeed Axmed Garaad Ibraahim Axmed Gurey qarnigii 15aad iyo ciidamadiisa ee soo majeystayaasha ahaa ay ku gurgurteen waxa loo yaqaan abaatir al-Xabash ay ku gurgurteen ilaa ay ka gaareen agagaarka Oxum iyo Gondar xagee ku maqnaadeen maalmahaas waa idinka maanta awood u sheeganay Soomaaliya maxaad ahaydeen barigaas oo maalintaas maxaad ku baxsateen waxaad ku baxsateen oo kaliya Portugiiska oo idin soo gurmaday reer galbeedka Vasco da Gama ciidamadiisa gurmadkoodii ayaad ku babaadeen ma jiri lahayn maanta wax la yiraahdo Ethiopia wax la yiraahdo ma aysan jirteen maanta xageed ku maqnaydeen oo kale markaad Soomaaliya maanta aad liidaysaan markii magaalo madaxda Soomaaliyeed ay ahayd Harar ay ahayd magaalo madaxda ummadda Soomaaliyeed markay ahayd xageed ku maqnaydeen ee ay maamulayeen
boqor ama amiir cabdishakuur iyo amiir nuur cabdishakuur waqtiga ay maamulayeen xaggeed ku maqnaydeen oo maxaad ahaydeen kolka maanta aad soomaaliya aad ka dhigaysaa waxaanan jirin oo aan awood lahayn oo aad ku dul socon kartaan xaggeed ku maqnaydeen oo maxaad ahaydeen markii geesigii soomaaliyeed maqdal daahir 1963 iyo 64 jabhadiisii soomaali galbeed ee weerarka ku qaaday Etoobiyaanka xagga dawladda Soomaaliyeedna ciidamadeedu ay ka soo qayb galeen dagaalka waa dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne aadan cabdulle cusmaan ra'iisul wasaarena uu ka ahaa cabdirashiid cali sharma arki allah u naxariistay labadoodaba hase yeeshee duruusta oo iyo cibro qaadashadii aad ka hesheen dagaalkii 1977kii waxaan moodayaa taasi weli maskaxdiina inaanay ka guurin taasi ayaan hubaa kadib markii ciidamadii Soomaaliyeed oo ay weliso jabhadii Soomaali galbeed iyo geesiyaashii deegaanka Soomaalida ay idinku qaadeen dagaalkii socday muddada 9 bilood ahaa ay idinku qaadeen ee ay ku dhawaadeen magaalo madaxdiina Addis Ababa oo ay u jirsadeen 90 kilomitir oo kaliya iyagoo markaasi daafaha iyo ciidamada iyo calanka Soomaaliya uu ka babanayay magaalada Nazareth xaggeed ku maqnaydeen soo ma ahayn markaasi madaxweynihii shuuciga ahaa Mengistu Haile Mariam intuu ku carray diyaarad khaas ah soo kama degin midowga Soviet oo uma tagin madaxweynihii Sovietiga xukumayay markaasi ahaa Brezhnev uusan u rukuucin markaa isagoo warqad caddaan ah sita oo markaasi saxiixiisa uu ku saxan yahay deedna miyuusan ka codsan in wax alla wixii uu baahan yahay ee Ethiopia uu ka rabo Brezhnev oo Ruushka ay ka doonayaan Ethiopia in uu ku qorto meeshaas warqadaas saxan isagana uu yiri jas waxaan ka doonaynaa in aad naga ilaaliso oo aad naga badbaadiso Soomaalidana soo hujuumtay macnaha wuxuu ku bedelanayay wax alla wuxuu uga baahan yahay Brezhnev waa madaxweynihii Sovietiga berigaas in uu ku qorto warqadaas oo isaga uu saxay Mengistu Haile Mariam taasoo uu ku bedelanayay in uu ka difaaco ciidamada Soomaalida waa kii ayaan weyd lahaa markii maxaakiimtii xilli dagaalkii 2006 Etoobiyaanka ay soo galeen Muqdisho ay soo galeen kii ka soo yiri uu ahaa muxuu ahaa meesha Zambia uu joogo ka soo yiri waa ku faraxsanahay Mille Zanaawi oo guusha aad samaysay ana rajeynayay taas inaan sameeyo waati uu lahaa maantana waxaan rajeynayaa inuu iga maqlayo goobta uu laaji ahaanta u joogo qaxootaanta u joogo ee Zambia ayaan rajeynayaa inuu iga maqlayo maanta ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay madaxda Etoobiyaanka ah dib u akhriya taariikhda akhriya waxaa laga yaabaa inaad hanuuntaan haddii kalese geesiyaasha iyo ciidamada Soomaaliyeed waa diyaar shacabku waa diyaar madaxdooda waa diyaar waxayna diyaar u yihiin taaka kasta oo ka mid ah wadankooda in ay difaacdaan arrinta kalese ee maanta oo ka sanqariyay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed shalana uu ka sanqariyay mid ka mid ah safiiradooda oo Mukhtaar Miyaa la yiraahdo ma aqaano uu ka sanqariyay leeyihiin annaga 10kii sanadood ugu dambeeyay Soomaaliya kumanaan ciidan ayaa nooga dhintay oo waxaan ka shaqeynaynay sidii Soomaaliya loo xasilin lahaa oo loo dejin lahaa ayaanu ka shaqeynaynay marka haddana Soomaaliya annaga ma doonayno inaan muxuu ahaa dagaal iyo arrimahaas inaan isaga hor imaadno wax waliba waxaan doonaynaa in heshiis ku dhamaysano marka beerla xawsigaasi xaggee ayuu idinkaga yimid ma idinka hadda Soomaaliya wax u qabanaya mise Soomaaliya ayaa wax idin soo qabatay midda kale Etoobiyaanku yaa yiri soo gala Soomaaliya kuma jirin mandate-kii hore in wadamada safka hore ama wadamada dariska ah Soomaaliya in ay ka mid noqdaan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya u imaanaya xasilinta kuma aysan jirin habkaad ku timaadeen waa la yaqaanaa marka hadday wax idinkaga dhinteen
iyo haddii kaleba in aad ummadda soomaaliyeed u beer la xusataan maaha weliba hoggaanka oromada waayo hoggaanka oromada sanadkii 1974 shirkii OAU-da ururka midooda Afrika ee markii lagu qabtay Soomaaliya go'aanadiisa waxaa ka mid ahaa in la xoreeyo dhammaan wadamada Afrikaanka ee ku jira gacanta gumaystiga ama gacanta gumaystayaasha reer ku jira in la xoreeyo oo laga xoreeyo gumaystayaasha ayay ka mid ahayd marka jabhaddii Eritrea oo hogaaminaya Cusmaan Saalax Sabbi jabhadda muxuu ahaa Etoobiyaanka oo hogaaminaya Mele Zaraawi abiyana uu la socday markaasi iyo kuwa kale fara badan jabhaddii Namibiyaanka Zimbabwe Zambia Angola kulli waxay joogeen South Africa kulli waxay joogeen Soomaaliya lagu tababarayay waxaa ku baxay qarashaad waxaa ku baxayay muxuu ahaa noloshooda oo dhan waxaa lagu tababaray Soomaaliya ayaa lagu tababaray kulligooda gacan ayay siisay dawladda Soomaaliyeed si ay u xoreeyaan dalkooda marka maanta miyay Oromo annagu nagu sheeganaysaa in abaal ay noo sameeyeen sidoo kale Oromada ma og yihiin horta ma ilowdeen in kitaabka ama buugga la yiraahdo Afanfura Oromo ee afka Oromada in lagu qoray madbacadda qaranka ee Soomaaliyeed in lagu qoray ma ka war haysaan oo Soomaaliya lagu habeeyay oo markaa kadib aad yeelateen af qoran oo dadkiin ay ku wada xiriiraan arrintaas in lagu sameeyo Soomaaliya ma ka war haysaan sidoo kale ma ka war haysaan ma ilowdeen in Cornel Waqo Guto oo ahaa Cornelkii hogaaminayay jabhaddii Oromada ee jabhaddii Soomaali galbeed kala qayb gashay dagaalka in lagu tababaray Soomaaliya isagii ciidamadiisa oo miisaanad loo qoondeeyay wax waliba loo qoondeeyay oo raashinkooda dharkooda wax waliba ay Soomaaliya siinaysa iyo dawadooda ay bixinaysay marka maanta inaad nagu beer la xusataan waa arrin muxuu ahaa iyaduna qiimeynteeda leh marka intaas ayaan uga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh